السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك حلن جنال كيني ويليا ومدى انت هورينا لجوكتي انت عصبة وحايدين ليا كسو دوالة تحنيني تضوي تونات كنا بيل ايو حبين هدي عاد نوع عصبتا سبسكرايب كتابو او جنباليل كان فرو سي كوسو غاران وحول بين صودي بن دربدي با او كمد نقو بعد ويليا ومدى سي ان سي ويجيلا سوغو ويلي سنو idin kale hadii aad horeyna la joogtayna like saar oo la wadaag asxaabtaada kuna soo qor fikirkaaga fiican qaybta hoose ee comment-yada iminkana daawasho wacan habeenkii xilwa ay saartay halkeeda ku bilowday boqorka waxa soo gaartay wiilkii uu yiri markii qasriga aan galay waa fariistay waxaana ay timid gabadhii oo ku labisneed taaj lagu xarday luul iyo yaaqud waxayna ku labisneed dhar hadii aad aragto aad quruxdiisa la yaabi lahayd intaan ayada quruxdeeda la gaarinba markay aragtay ayay qosashay waxayna igu tiri ma dhawaa waxaan arkayo mise waa indhahayga ama waad ila joogtaa waxaan ku iri may waa xaqiiqo oo waa dhab oo waan ku hor fadhiyaa waxay ugu tiri bal soo dhawow hurdayo cunto waad ii diiday waxaan ugu jawaabay aniguba kula mid ayaan ahay maalintaan ku arkay ayaa cunto ugu dambeysay kolkaas ayaynu cabaar fadhiisanay oo sheekaysanay kadib waxaa la ii keenay raashin kala nooca oo qof walba arko oo maalin uun kuriyoodo inuu cuno markaas ayaan cunay ilaa aan ka dhergo kadib waxaa la ii keenay farxal iyo cadar aad u caraf badan intaa kadib waxaan u gudubnay qol aad u qurux badan si heer saran loo gogolay kadibna waxaanu galnay sheeko iyo kaftan ilaa iyo waagan ugu markii suuxii la gaaray ayaa soo saaray lacag jeebkii ku jirtay oo 50 dinar ahayd gabadhiina ayaan siiyay markaas ayay u tiri goorme ayaan mar kale kulmaynaa waxaana ugu jawaabay aniga ku imaan doono waana ka soo tagay waxaana soo aaday suuqii anigoo ganacsiga guda galay habeenkii markii la gaaray ayaa waxaan soo qaatay lacag la eg intaan shala soo qaaday waxaana soo aaday qasrigeedii markaan u imid ayaa lii soo dhaweeyay waxaana la ii keenay casho heer sare ah waynu cashaynay kadibna sidii habeenkii hore ayaa sheeko iyo haasaabo qabsanay suuxii markii la gaaray ayaan lacagtii siiyay waana soo baxay waxaan sidaan muddo dheer u ahaado oo habeen kastaan u geynayay 50 dinar ayaan falisay oo lacagteedii dhan waayay waxaan noqday mid aan waxba haysanin kolkaas ayaan ka shalaayay aniga oo niyada iskiiri shaydaan ayaa ku duufsaday jeebkeen waxa uu ahaa mid aan waxba ku jirin waana falisay aniga oo suuqa dhaxmarayo oo meel cariiri ah ku jira ayaan waxaan arkay askari jeebkiisa ku jirto boorsiyar oo lacag ku jirto waan damcay gacanteeda ayaan taagtay waxaana geliyay jeebkii askariga boorsadii ayaan la soo baxay askarigii ayaa dhankayga soo fiiriyay inta uu shaki galay wuxuuna gacantiisa la aaday jeebkiisa wuxuuna dareemay inay lacagta ka maqan tahay kolkaas ayuu dhalbaaxa boolis ii taagay inta uu dhulka ila wareegay ayaan wareeray kadib dadkii meeshii maraya ayaa igu soo xoogmay ayaga oo bilaabay inay askariga iga celiyaan iyaga oo ku leh naxariis darnida maxaad wiilka sidaan ugu galaysaa asigana waxa uu ugu jawaabay war waa mid xaaraami ah oo waa tuug lacag ayuu iga xaday anigu ma aan soo naqan weli sidii ayaan u baxsanahay oo waan wareersanahay hadalada dadkana si fiican ma aan u maqlaynin waxaana in yar isoo gaargaaraysa dadkii oo leh wiilkan waa miskiin waxna kaama xadin dadka qaar waxa ay ahaayeen kuwa aniga i difaacayo qaarna askari ayay ula jireen ilaa barsaabkii magaalada iyo qaar ka mid ah taliyaashii ay meeshii yimaadeen way nagu soo leexdeen ayaga oo dadkii weydiiyey maxaa meeshan ka dhacay kolkaas ayaa askarigii hadlay waxa uuna yidhi amiir kani waa tuug waxa uuna iga xaday boorso buluug oo ku jirtay 20 dinar aniga oo meel cariiri ah marayo ayuu jeebkii kala baxay barasaabkii ayaa askarigii weydiiyey cidna kula socotay miskaliyaga ayaa ahayd askarigii ayaa ku jawaabay maya cidna ilama soconin keligii ayaan ahaa kolkaas ayaa barasaabkii amar ku bixiyay in la ii baaro waa la ii baaray ilaa laga soo bixiyay jeebkayga boorsadii oo lacagtii ku jirtay kolkaas ayaa barasaabkii lacagtii tiriyay waxa uuna ogaaday 20 dinar waa askarigii sheegayay inay tahay askariguna arinku sheegayay inuu xaqiiqo yahay barasaabkii aad ay u xanaaqay waxa uuna yiri horteyda hala ii keeno markay la ii geeyay ayuu wuxuu u weydiiyey war yaa wiilow ma adiga lacagtan xaday xoogaa ayaan kala hadlay balse waxaan go'aansaday in runta sheego waxaan ku yiri هاهي أنا جاي حظي برساتي وحول يا بس إذا أنت أقولي ردي كدبنا وحوعي مرقاتياشي مركي هذا الكيل الديوانجلي أيا جعنت اللي يجوي برساتي نو إسكتجي مركي جعنت اللي يجوي أيا دبتي يوسف حبمن إجانا نحين وحين يكين بيو يباد حتى وحاجنا حاسكري إسقى إسي شنددي لعبت كجرتي وحتى ويل ونكسن معقول لما إن توك تعي هدي أنا حكم كبرسات كجار لهينا وأنا إسكتعافين لها كل كات أنا جوات وحنون سنة يمشي إسكيس tagay gacanteeda la ii gooyna waxaan ku qariyay jaabkayga ilaa aan gabadhii ugu imid markii aan u imid ay wajigayga isbedel ka dareentay mana aysan arkin gacanteyda maadaama aan qarinayay waxay igu tiri maxaa kugu dhaco aad la murugaysan tahay wajigaaga maanta isbedel ayaa ka muuqday laakiin wax ma aanan u sheegin qolka ayaan iska galay balse way iga soo dawgashay iyada oo sugayso inaan u sheego sidii ay wax u jiraan balse uma jawaabin ilaa habeenkii la gaaray habeenkii markii la gaaray waxa ay keentay casho laakiin waan ka cudur daartay inaan cuno aniga oo
ka cabsanayo inay aragto anigoo bidixda wax ku cunayo. Kadib ayaan seexday. Markii seexday ayay waxay aragtay gacanteydii go'an iyo 20 diinaar oo aan wato. Markaas ayay aad u murugootay. Subaxii markii la gaaray oo aan damcay inaan hurdadii ka soo kacoon baxo. Markaas ay igu tiri, "Xageed rabtaa inaad aado?" Waxaan ugu jawaabay, "Waxaan rabaa inaan aado meel aan murugada iskaga bi'iyo. Ha taginay kaali oo halkan soo fariiso." Markaan agteeda soo fariistay waxay ugu tiri, "Jacayl aad ii qabto dartii ma waxaad gaartay heer oo hantidaada oo dhan igu bixisid ilaa ay wax ay ku soo hari waayeen oo gacantaadana aad ku weyday. Allah ayaa iga marqaati ah inaan weligay ka hari doonin. Hadalkeeyana run ahaanshihiisa waan ku tusi doonaa." kolkaas ay sheekh iyo marqaatiba iskugu wacday. Markay u yimaadeen waxay ku tiri, "Marqaati ka ahaada in wiilkan aan meher aan ugu qaatay 20 diinaar. Guurkiisana aan rabo. Waxaadna ka markacdaan inaan maalkayga oo dhan iyo dhammaan adoomadahayga iyo jaariyadahayga oo dhan asiga aan ku wareejiyay." Gabadhii ayaa la ii meheriyay. Kadib intay isoo kaxaysay ayay isoo hor istaajisay sanduuq weyn. wayna furtay waxayna ka soo saartay boorsooyin yar oo fara badan oo ah kuwii aan lacagta ugu keeni jiray lacagtii oo sidii ugu jirto waxayna igu tiri kani waa xoolihii aan ka qaadi jiray waxaana maalin kasta ku ridi jiray sanduuqan ee oo qaado alla dib ayuu kugu soo celiyay wixii kugu dhacayna waxay ahaayeen qadarta alle anigana ma awoodo inaan abaalkaaga gudo xitaa haddii aan nafteeda ku hibeeyay hantideedii dhan ay igu wareejisay anigana waan ka aqbalay waxayna ahayd mid aad ugu murugaysan waxaan sii wada nooleen gabadhaasi muddo bil ah hase yeeshee murugadeedii ayaa ku sii xoogaysatay wayna xanuunsatay xanuunkeeda maalinba maalintii kasii dambaysay wuu kasii darayay markay bil iyo 20 bir xanuunkaa u jiiftay ayay geeriyootay waxaana dareemay murugo iyo walbahaar daran meedkeeda ayaan soo aasay anigoo hanti fara badan u sadaqeeyay kadib marka ay xaaskayga dhimatay waxaan ogaaday inay hanti fara badan iga tagtay oo ay qayb ka yihiin badeecadii aan halkan u iib keenay taasna waa sababta aan gacanta bidix wax ugu cuno wuxuuna iga codsaday inaan Masar u raaco anigana waan ka ogolaaday waxaan isku raacnay dhulka Masar ilaa iyo halkan isku soo wareegay oo aan kala kulmay ninka meedka ah markaas ayaa suldaankii yiri dhamaantiin waa idin wada daldalaya markii ay sheekadii halkaas maraysay ay Shahrazad dareentay in suuxii la gaaray ayada oo joojisay hadalkii u banaana waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan inta aan ku kulmi doono qaybta xigta waxa idinkaga tagayaa sida iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh